dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhigeeda Itoobiya ayaa maalmahan ku mashquulsanaa calaamadeynta iyo goobaha cusub oo ay ku shaqeyn doonaan ciidanka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya kaasi oo loo yaqaan Azam. dowladda Soomaaliya ayaa soo joodisay in Itoobiya ay baneyso gobolada Bakool, Bay iyo gobolka Gedo, laakiin Itoobiya ayaa qayb ahaan taasi aad uga cagajiiday. waxay si weyn isaga riixeen in ay ka baxaan gobolka Gedo, sidoo kale waxay ku far adeegayaan gobolka Bakool. waxaase la soo warinayaa inay aqbaleen in ay ka baxaan qaybo ka mid ah gobolka Bay oo ay ku jirto magaalada Baydhabo. caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo ayaa hadda si weyn ugu tiirsan kaalmada militari ee Itoobiya, waxayna ciidankeeda ay joogaan madaxtooyada Koonfur Galbeed, garoonka diyaaradaha iyo qaybo kale oo muhiim ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa damacsan in magaalada Baydhabo ay geyso ciidan ka socda waddanka Uganda, sida ay xubno fila Soomaaliya ay inoo xaqiijiyeen. isbeddelkan ciidan ee magaalada Baydhabo ma noqonayo mid amni oo keliya, sidoo kale waxa uu noqon doonaa mid siyaasadeed. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Laftagareen oo la sheegay inuu helay xogta ah inay Itoobiyaanka ay ogolaadeen in magaalada Baydhabo ay ka baxaan, ayaa la sheegay inuu si gaar ah qodobkan ugala hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo la sheegay inuu dalbaday inuu magaalada Baydhabo lagu daro goobaha ay sida weyn u joogi doonaan ciidanka Itoobiya. sida ila ku agdhoofila Soomaaliya ay noo xaqiijiyeen, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jawaab diidmo ah ama ogolaansho ah siinin Laftagareen, laakiin waxa uu qabsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in isaga laga warsugo muddo 10 cisho ah. Laftagareen markii uu joodinayay codsigaasi waxaa kulanka ku weheliyay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan weyn ku yeelan doonto ama go'aankeeda siyaasadeed Koonfur Galbeed ku yeelan doonto haddii ay magaalada Baydhabo ay geyso ciidan ayada ka amar qaata. Laftagareen wixii markaasi ka dambeeyay wax uu kala dooran doonaa inuu ku buuxo jidkii Shariif Xasan Sheekh Aadan ama 100% uu isku dhiibo taliska Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay fila Soomaaliya ay go'aan ka gaarto mustaqbalka xukunka Koonfur Galbeed haddii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku adkaysto inay ciidanka Itoobiya ay ka baxaan magaalada Baydhabo. Laftagareen waxa uu ku qasbanaan doonaa in uu la yimaado siyaasad degdeg ah. daba daawade adiga maxay kula tahay?